horeen u nidhi bugaagta gaalada wixii aan caqiidadeena iyo diinteena suuban ka soo horjeedin ayaanu ka qaadanaynaa. Alxikmatu daalatul mu'min baa layidhi. maanta waxaan halkan kusoo gudbinaynaa 6 cashar aynu ka qaadanayno buugga la yidhaahdo The Richest Man in Babylon. casharka koowaad aynu ka qaadanayna waxa weeyaan wuxuu leeyahay wixii ku soo gala 10% meel dhigo. 2 kharashkaagu yaanu ka badanin dakhligaaga. 3 lacagtaada maalgelin ku samee oo ha kuu shaqayso. 4 wuxuu leeyahay guriga aad ku jirto ee kuu karaysan iibso si aad uga raysato kirada. 5 waxaad yeelataa ilo kale oo dakhli kaa soo galo. kaliya ha isku halaynin mushaharkaaga ama hal il oo kaliya oo dakhli kaa soo galo. 6 waxaad maalgelin ku samaysaa naftaada oo waxaad kordhisaa xirfadahaaga waad ku fiican tahay. maalgelin ku samee oo tababar qaado oo aqoontooda kordhiso. sideed u aragtaan asxaabi casharada buugga aynu ka